xafladan qiimaha leh ee sanad guuradii saddexaad ee Roore Media Production aad iyo aad baan u bogaadinayaa waan ku faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo runtii Roore Media Production sida halkan baa ka maqlayseen waa team shaqo aad u hufan leh akhlaaqdooda iyo dabeecadooduna runtii la mahadiyay waxaan intaa ku darayaa muuqa ay baahinayaan iyo codadka ay duubayaan runtii gobolka tayada ugu sarreysa ayay gaarsiiyeen waxay kaloo iyana aad iyo aad ugu soo bandhigaan xirfadooda shaqo khayraadka gobolkan iyo bilicda ku gadaaman oo ay in badan nala wadaagaan waxaan kaloo iyana halkan uga mahad celinayaa Sahra Degan decoration runtii xafladan iyaduna qayb ka ahayd bilicdeeda iyo quruxdeeda aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii dhiirigelin bay mudan yihiin waa meherad runtii abuurtay dabeecad wanaagsan bandhigis xirfadeed oo tayo sare leh iyo shaqo abuurba leh runtii degmada Ceergaabo ee gobolkuba baahi weyn buu u qabaa dhalinyaro sidaas oo kale ah aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan kaloo doonayaa inaan halkan uga faa'iideysto runtii saxaafaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha daruuriyaadka ah imika ka mid tahay sida inaan uga maarmin biyaha iyo darbi xugmaya leerka iyo imika saxaafaddu kow ka tahay waxa weeye tabashada cid kasta iyo arrin kasta oo la gelayo inay baahiso gaarsiiso meel dheer aad iyo aad baan looga maarmin Roorena sumad buu ku leeyahay gobolka waxaan kaloo doonayaa inaan kelmad idhaahdo saxaafaddu runtii uma baahna caga juglayn iyo in loo hanjabo iyo runtii in sida ay doonayaan u shaqeeyaan waxaan doonayaa inaan ku yaro dhaliilo xukuumadda haddan jirta iyo xisbiga kulmiye inay caadaysteen inay dhaliilaan inay caburiyaan caga jugleeyaan runtii saxaafadda madaxa bannaan leh waxaan leeyahay xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waa meherad waxa weeye nin walibaana wuxuu doonayaa inuu ka adeegto ha u fahmina wasaaradihii iyo laamihii dowladda runtii wax jira oo iminka gobolka taagan xaalad ah in meediyaha qofkii doonaya inuu xisbiyada mucaaradka iyo aaraada kala duwan ee arrimada bulshada gudbiyo in loo caga jugleynayo loo hanjabayo waxaan leeyahay ka daaya waa ogtihiin xaaladda waddanku hadda halkay marayso waa ogtihiin dalku doorashuu diyaar u yahay laasacanood iyo guud ahaan gobolka Somalilandba maanta gacantiina kuma jirto waxaan leeyahay intaa in ka dhow baa la doonaya in laga qabto aad iyo aad baan doonayaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u bogaadiyo tiimkan halkan xafladan qiimaha leh ku soo bandhigay waxaan kaloo doonayaa inaan uga faa'iideysto madaxda heer gobol iyo halkan xisbiga kulmiye u joogta inay dhalinyarada ka afkaarta duwan xisbiyada mucaaradka ay xidhaan waxaynu xisbiyada nidaamka xisbiyada badan u qaadanay haddaynan afkaarta xisbiyada ku kala duwanaanayn waxaa madaxweyne aad xisbiya ururada u furaysaa haddii kii ka aragti duwanaada aad xidhayso la xidhayo la caburinayo runtii aan loo ogolayn inuu soo bandhigo fakarka siyaasiga uu qabo iyo cidda uu taageersan yahay runtii jamhuuriyadda Somaliland waa qaran dimuqraadiya wuxuu diyaar u yahay in nidaamka xisbiyada badan uu qaatay macnaheeduna waxa weeye in afkaarta dadka ay kala duwanaan karto oo qof kastaaba halka uu doonayo uu ka hawlgalayo waxaan ugu dambeyn doonayaa inaan ku soo ururiyo hadalkayga arrinkan laasacanood runtii halkaa dee madax dhaqameed iyo garaado fara badan baa isugu yimi ilaahay waxaan uga baryayaa laba talaba tiisan ilaahay waafajiyo kolley madax dhaqan weeyaan madax dhaqanna meel ay isugu timi wax xun lagama eegayo waxaan ku dhaliilayaa xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne biixiba inay ku fashilantay arrimihii guud ahaan Somaliland iyo gobolka Soolba waxaan leeyahay war arrinka haddii aad ku guul daraysateen
iscasilo waddanka doorasho degdeg ah loo qabto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.